وزارة مالية الدكتور عبد الرحمن دعالة بيلي تليها هوجانك ciidanka ilaalada dhaqaalaha iyo dabagalka canshuuraha mudane General Barise gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Galambe maareeyaha dekedda Muqdisho Ahmed Washington dhammaan saraakiisha howlwadeennada iyo madaxda furdooyinka Soomaaliyeed iyo dhammaan shaqaalaha kale ee nala joogay wasaaradda maaliyadda qaybaheeda kala duwan miidiyaha iyo fanaaniinta heesaha qiirada leh runtii halkan ka qaaday waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii munaasabadda maantay waa munaasabad aad ugu weyn bahweynta furdooyinka Soomaaliyeedna baryahan sidii aan ugu biirnay ururka furdooyinka caalamiga hay'adda furdooyinka caalamiga waxaan ka mid nahay furdooyinka bahweynta ku bahowday 190 iyo dhowrka wadan marka waa maalin runtii aad loo ixtiraamo aad loo weyneeyo duruufaha ay ku shaqeeyeen qasuusan markaan ka hadlayno waqtiyadii dambe oo aad u adkaa marka waxaan idin leenahay hambalyo waa idinla soo dhaweyneynaa waxaan jecelnahay in wanaagga halka uu ka sii bato dadaalka halka laga sii laabo baryahan waxaa kaloo nagu soo socday oo reformskeeni soo gabagabeynaya xagga customska isticmaalka digitalka oo ugu horeeyay systemkan somkaas meel fiican ayuu inoo marayaa waxaa socda tababarkiisii ilaahay hadduu yidhaahdana bisha 1 February si gaar ah oo barooba ah loogu bilaabi doonaa kadibna 1 Mars ilaahay hadduu yiraahdo si live ayuu qorshaha inuu yahay in loo bilaabo marka dhammaan waxa uu fududeyn doonaa saddexda arrimo waaweyn ee furdooyinka qabtaan oo ah ka hortag in laga hortago wax dalka laga diidan yahay in la keeno ururintii dakhliga oo si saafiya oo aan gacan kala lahayn ayadoo danabaysan ee u mareyso dhammaan procedure-kii loo dejiyay iyo in la joogteeyo lana controlo dhammaan fursadaha dhaqaale si loo fududeeyo dhaqaalaha dalka ama habsami u socodka alaabaha soo degay dekedda ka baxaya iyo kuwa ka dhoofaya labadaba marka arintaas oo dhan ayuu systemka jiheynaya ilaahay hadduu yiraahdo sidoo kale walaalkeen maareeyaha sidoo noo sheegay waxa socda ayadana dhinac kale oo reform dekedda xaggeeda ka socda oo ayadana aad u sii fududeynaysa ganacsigii haddii ay noqon lahayd in aan isku soo dhaweyno qaabka loo dejiyo iyo loo saaro alaabaha oo qalab fara badan oo casri ah markii hore gacmo iyo waxa lagu dejin jiray marka qalab badan oo casri ah inoo soo wadaan waxa kale oo ayada daba socota systemka uu ka hadlay walaalkay oo asagana system aad u jiheyn doono logisticada dekedda gudaheedii iyo dhaqdhaqaaqi dekedda banaanka iyo baabuurti marka runtii haddii systemyadaas la isku xiro ganacsatada si aad ugu fudud ay alaabtoodii ula baxayaan kuna dhoofsanayaan marka runtii mahadaha ka gaarto madaxda nagu hogaaminaysay dadaalka runtii waa dadaal dheer oo meel dheer ka yimid oo wasiirku hormud nooga ahaa haddana ku soo gabagaboobay inuu noqdo mid la jaan qaada dunida aada u mahadsantihiin maalinta waa idinla weyneynayna insha Allah waan ognahay duruufihiina wixii aan madaxda waxba ka qaban ayaan lees oran waxba laga ma qaban duruufaha ku xeeran ayadana waa laga qaban doonaa ilaahay hadduu yiraahdo waxyaabo badana inoo dhiman wada tashi iyo waxaan ku wada dhameyn doonaa ilaahay hadduu yiraahdo iyo isfaham waxaan jeclaan lahaa inaan halkaa kaga baxo kadibna aan ku soo dhaweeyo si uu xafladda noogu soo xiro wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle